kulanti wanaagsan daawadayaal soo dhawaada barnaamijyadeena qodobada ku daawo doontaana hadduu rabiidmo waxaa ka mid noqonayo hubkii ugu badnaa oo loo daabulay gobolka Shabeellada Dhexe iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya oo abaabul wajh cusub ka bilowday degmada Cadale. hadda waxaan idin wadaagi doonaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo hubkii lagu soo qaaday magaca dowladeed gacanta u gelinayo beeshiisa iyo saraakiisha ciidanka Gorgor iyo Danab oo qabiil loo kala gurayo midba deegaankiisana loo dirayo. waxaan idin soo gudbin doonaa xogihii ugu dambeeyay ku aadan burburka ciidamada qaranka oo si weyn looga digayo iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ciidamo gaar ah oo ka tirsan kuwa Gorgor maanta u dirtay deegaano ka tirsan maamulka Galmudug iyaga oo magac qabiil lagaga qaaday garoonka diyaaradaha Aadan Cadde. xogihii ugu dambeeyay hubkii dhawaan ka soo degay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde oo qabaa'ilada loo qaybinayo. waxaan idin soo gudbin doonaa ciidamadii ay dhisay dowladdu hogaaminayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo hadda qarka u saaran in ay burburaan isla markaasina ay ku kala biiraan qabaa'iladooda oo ay isku bedelaan qablayaal isbaarooyin ka dhigta wadooyinka waaweyn ee gobolada dalka gaar ahaan deegaanada lagu xoreeyo ururka Al-Shabaab. barnaamijyadeedkan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. qodobada kale oo daawo doontaan waxaa ka mid noqon doona dowladda federaalka ee Soomaaliya oo si kulul uga jawaabtay hadalkii la yaabka lahaa ee Mahad Karatay uu ka yiraahday weerarkii Zoobe. waxaan idin soo gudbin doonaa maxay dowladda federaalka ee Soomaaliya ka tiraahday ninkii daad ahaa ee 50 jirka ah isku qarxiyay xarunta wasaaradda waxbarashada Soomaaliya iyo dadkii lagu dhameeyay Zoobe iyo hadalka ka soo yiri Al-Shabaab oo ay jawaab lama filaan ay ka bixisay dowladda federaalka ee Soomaaliya. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya oo carro ay ka muuqato kuna dhawaaqay go'aamo culus ayaan idin soo gudbin doonaa. wararkeena kale waxaa ka mid noqon doona Al-Shabaab oo afduubtay shaqaale caafimaad oo Kenyaan ah xilli dhaawacyadoodu ka soo gaaray dagaaladii ka dhacay deegaanka Cali Gaduud ee gobolka Shabeellada Dhexe ee Soomaaliya. meel la kala geeyay la leeyahay geedaha hoostoodana lagu dabiibayo kuwa kale tan kooxdu ay nolosha iyagoo nool dhameystirayaan. waxaan idin soo gudbin doonaa kooxdan shaqaalaha caafimaad oo ay dalka Kenya ka soo afduubteen halka la geeyay iyo macluumaadka ku aadan in kooxdu haatan shakhsiyaad sarsare oo xilal sarsare ka ay kooxda dhaxdeedu ay dhaawacyo culus ay soo gaareen kadib duqeymihii ka dhacay deegaanka Masjid Cali Gaduud ee gobolka Shabeellada Dhexe ee Soomaaliya. isla mid ah wararkeena waxaa ka mid noqon doona dowladaha Soomaaliya iyo Kuwait oo heshiis qarsoodi ah wada saxiixday. heshiiskaas iyo waxa uu daaran yahay ayaan idin soo baahin doonaa. qodobada iyo kuwa kale oo xasaasi ah ayaan idin haynaa daawadayaal. hase haatee intaanu gudagelin dhammaantiinba waxaan idin ku codsanaynaa inaad nagala qayb qaadataan faafinta wararkan muuqaalkana like dhadaan sidoo kale tan la wadaagtaan saaxiibadiina kala mahadsanideen aan ku bilaabo. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa hubkii ugu badnaa u daabushay gobolka Shabeellada Dhexe ee Soomaaliya iyadoo dowladuna ay bilowday abaabul wajh cusub ah oo ku aadan dagaalka ka dhanaa ururka Al-Shabaab ee ka socanayo deegaanada hoostaga degmada Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe. arrintan ayaa sidoo kale waxay banaanka ay keentay in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud hub dhawaan lagu soo qaaday magaca dowladda federaalka ee Soomaaliya oo laga keenay dowladaha Masar iyo Uganda in haatan uu qaybtii ugu horeysay uu gacanta u geliyay beeshiisa gaarka ah ee hoose iyo waliba madaxtooyadana ay bilowday qorshe ku aadan in ciidamada qaranka gaar ahaan kuwa Gorgor iyo Danab oo ay tababaraan dowladaha Mareykanka iyo Turkiga in loo kala furfuro qaab qabiil ah isla markaasina hubka laga keenay wadamadaasi iyaga oo hubeen magac qabiil gacanta loo geliyo mid walibana loo diro deegaanka sida gaarka ah uu kaga soo jeedo si uu uga dulqaado ururka Al-Shabaab ee muddo dagaal ay kula jireen beelaha Soomaaliyeed. ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee tababarkooda sareeyo gaar ahaan kuwa Gorgor iyo Danab ayaa looga mahad celinayaa intooda ugu badan dhisidooda dowladii uu hogaaminayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dowladaha Turkiga iyo Mareykanka oo garab ku siiyay dowladda federaalka ee Soomaaliya inay yeelato awood ciidan oo qubad leh oo dhisan isla markaasina si weyn ay kaga baqaan qaar ka mid ah dowladaha diriska iyo waliba dagaalyahanada argagixisada ah ee ka dagaalama Soomaaliya. ciidamadan oo hub iyo sanad military oo heerkoodu sareeyo heystay ayaa la sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya hubkii waayidii ugu dambeeyay ay ku dagaalamayeen ay u qaybisay ciidamada qaabka beeleed u abaabulan oo ay ka ilaadeen sanadii military oo ay kaga dagaalamayeen gobolka Shabeellada Dhexe ee Soomaaliya.
ilo wareeda lagu kalsoonaan karo ayaa waxay xaqiijinayaan in cutubyada ciidamada gorgor iyo danaba iyaga qudhooda dhexdooda ay ku socoto kala qaybin qolo walbana loo dirayo deegaan gaar ah oo ay ka soo jeedaan. gelinkii dambe ee shalay ayay ahayd markii cutubyo ka tirsan ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee gorgor oo loo huwiyay magac qabiil in loo daabulay deegaano ka tirsan maamulka galmudug gaar ahaan deegaano oo ay ururka al-shabaab haatan ay gacanta ku hayaan oo ay kamid tahay ceelbuur iyo deegaano kale oo ay beelaha Mursade iyo Duduble ay deegaan loo daabulay si halkaasi ay kaga xoreeyaan. inkastoo ciidamadaas laga dejiyay Dhuusamareeb haddana waxaa loo diyaarinayaa inay xoreeyaan deegaanka beeshoodu ay ka haystaan ururka al-shabaab. inkastoo la bogaadinayo in ciidamadu haatan ay bilaabaan qorsho deegaanadoodu ay kaga dulqaadaan kooxaha nabaadiidka ah haddana waxaa si weyn loo dhaleeceynaya in ciidamadii qaranka qaab qabiil loo kala furfurayo. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa haatan u muuqdo in uu hubanayo shaar qabiil isla markaasina ciidamada qaranka oo awood buuxda lahaa haatan ka dhigayo kuwa qaab qabiil u kala furfuran sida ay qabaan falanqeeyaasha dhinaca amniga ah. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa geed dheer iyo geed gaabanba waxay u fuuleysaa sidii dagaalamayaasha ururka al-shabaab guud ahaan dalka lagu xoreyn lahaa iyadoo siyaasadaha ay isticmaalaysa qaarkoodna laga digayo. ciidamada xoogga dalka Soomaaliya qaybahooda kala duwan ayaa waayidii ugu dambeeyay waxaa la xasuustaa xilligii dowladii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in ay noqdeen ciidamo qaran iyo kuwa qabiil dowladdu ay ka soo horjeesteen halka kuwa qarankana dowladnimada Soomaaliya ay difaacayeen. hase yeeshee hadda madaxweyne xasan sheekh uu talada la wareegay ayaa intii yareed ciidamada qaranka ee la warinaya in kooxo abaabulan oo xafiiska madaxweynaha ka socdo ay bilaabeen inay kala furfuraan oo ay u diraan deegaanada ay ka soo jeedaan iyagoo shaar qabiil huban. arrintan ayaa si weyn lagaga digaya waxaana dadka falanqeeyaasha dhinaca amniga ay qabaan inay tahay mid qarka u saareysa Soomaaliya inay burburaan ciidamadeeda qaranka. dadka taageersan dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxay ugu qildayaan in ciidamadani haatan sababaha loogu dirayo deegaanadoodu inay yihiin in ay al-shabaab ay ka xoreeyaan balse dib loogu soo celin doono ciidamadan xeryahooda markay deegaanadoodu ay xoreeyaan isla markaasina maamulka dowladda ee gacanta dib loogu soo geliyo deegaanada haatan al-shabaab ay ka haystaan. hubkan loo qeybiyay beelaha gobolka Shabeellada Dhexe dega ayaa waxa uu yahay hub labadii maalmood ee la soo dhaafay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde laga soo daabulayay isla markaasina madaxtooyada lagu soo daabulayay kuwaas oo ugu dambeyntii laga qaaday shalay iyo maanta magaalada Muqdisho isla markaasina gobolka Shabeellada Dhexe la geeyay. geesta kaleetana daawadayaal haddii aanu fiirino dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa si la yaab leh ugu jawaabtay ururka al-shabaab gaar ahaan mid kamid ah hoggaanada ururka al-shabaab oo lagu magacaabo Mahad Karatay oo si la yaab leh kaga hadlay weerarkii ka dhacay Zobe ee magaalada Muqdisho. weerarkaasi oo Zobe laba loogu magac daray isla markaasina dadkii ugu tirada badnaa ee Soomaaliyeed ee waxyeelo ay ku soo gaartay 300 oo ruux ay cisbitaalada ilaa haatan ugu jiraan in ka badan 100 ruuxna ay ku geeriyoodeen. maanta arrinkaas waxaa si kulul kaga hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi. wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa xilli maanta uu la hadlayay warbaahinta jawaab adag ka bixiyay hadalkii ka soo yeeray Mahad Warsame Karatay oo kamid ah hogaamiyaasha sarsare ee kooxda al-shabaab kaasi oo sheegay in qaraxyadii Zobe ka dhacay lala beegsaday xarunta wasaaradda waxbarashada isla markaasina ay ku dileen 69 kamid ah askarta dowladda Soomaaliya. Fiqi ayaa waxa uu sheegay in Mahad Karatay uu yahay nin tuug ah isla markaasina uu ku faanayo daadinta dhiigga shacabka Soomaaliyeed sida uu hadalku dhigay. Mahad Karatay tuuga ah waxa uu ku faanayaa in 100 ruux uu ku dilay qaraxii Zobe. waxa uu yiri wasaaradda waxbarashada ayaa u socday wasaaradda waxbarashada ayaa joogo arday iyo waalid ayuu yiri isaga uu isku jawaabayo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya. sidoo kale waxa intaasi uu ku daray waa nin aanan naxin isla markaasina nin rabo inuu cabadhiga dadka shacabka Soomaaliyeed ayuu hadalkiisa sii raaciyay. wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya oo caro xoogan ay ka muuqatay ayaa sidoo kale sheegay in qaraxyadii Zobe al-shabaab ay la beegsadeen wasaaradda waxbarashada agagaarkeeda isla markaasina taasi ay cadeen u tahay inay target u yihiin dadka aqoonta leh ee Soomaaliyeed maadaama ay weerareen goobtii waxbarashada. taasi beddelkeed waxa uu sheegay in kooxdu haatan ay u soo jeesatay cabida dhiigga dadka shacabka Soomaaliyeed isla markaasina iska deeday dagaalkii kula jirtay dowladda federaalka ee Soomaaliya. waxa uu tusaale kaga dhigay dadkii la xasuuqay in dhammaantood bay u badnaayeen dad shacab ah isla markaasina ay yaraayeen wax mas'uuliyiin dowladeed ah oo halkaasi lagu diray. dowladda federaalka ee Soomaaliya
ilaa xilligan ma jirto cid mas'uuliyadda dusha saaratay weerarkii dhacay. Dad badan waxay isweydiinayaan sababta madaxda Soomaalida lagaga waayo cid qaadata mas'uuliyadda weerarada dalka ka dhaca, kuwaasi oo dad shacab lagu laayo aysan jirinna cid dib wax iskaga weydiisa. Musiibadii ugu dambeysay ma jirto sargaal ciidan oo wax laga weydiiyay, sargaal booliis oo loo soo xiray, xitaa ma jirto taliye unug oo arintaasi wax laga weydiiyay. geesta kaleetana daawadayaal haddii aynu fiirino dowladaha Soomaaliya iyo Kuwait ayaa heshiis wada galay kadib shirka ka dhacay Algiers. Dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Kuwait ayaa ku heshiiyay in iska kaashadaan amniga waxbarashada kadib kulan ay yeesheen wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda labada dal. Qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in wasiir Abshir Cumar Jaamac oo magaalada Algiers ku sugan in uu kulan kula qaatay dhigiisa dalka Kuwait Salmaan Cabdullaahi, isla markaasina labada dhinac ay kaga wada hadleen iskaashiga labada dhinac ee amniga, ciribtirka waxa lagu yeero qawaariijta argagixisada ah ee Al-Shabaab iyo horumarinta waxbarashada. Labada wasiir ayaa sidoo kale isdhaafsaday aragtiyo ku saabsan xoojinta xiriirka iyo sidii loo sii wadi lahaa iskaashiga dhinacyada badan leh ee labada dal. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa ka qayb ah wafdi uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugan dalka Algeria, halkaasi oo ka socdo meertada 11aad ee shir madaxeedka ururka jaamacadda Carabta oo ka furmay magaalada Algiers ee dalka Algeria. Wasiirka arrimaha dibadda ayaa sidoo kale waxa uu halkaasi isaga iyo madaxweynuhu ay ka wadaan kulamo xasaasi ah oo ay dowladda federaalka ee Soomaaliya ugu raadinayaan taageero dhinaca militariga. ugu dambeyntiina daawadayaal haddii aynu fiirino dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab ayaa waxa ay soo afduubteen dhaqaatiir la sheegay inay Kenyaan ahaayeen xilli dagaalyahanadii kaga dhaawacmay dagaaladii ka dhacay deegaanka Masjid Cali Gaduud iyo gobolka Hiiraan ee Soomaaliya ee qaarkood geedaha hoostooda lagu dabiibayo, kuwana iyaga ay nolosha iyagoo nool dhameystirayaan. Booliiska dalka Kenya ayaa sheegay in maleeshiyada loo maleynayo inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab ay laba ka mid ah shaqaalaha caafimaadka iyo waliba darawalkii waday gaari nuuca ambalaaska ah oo ay bukaanno ay ku wadeen ay ka afduubteen meel u dhow xadka Kenya ee la wadaagta Soomaaliya. Kooxda weerarka soo qaaday ayaa wararka waxay sheegayaan in weerar gaadmaha ay ku qaadeen gaarigan ambalaaska ah oo ay leedahay dowlad goboleedka Mandera ee waqooyi bari dalkaasi, xilli bukaanku ay u qaadaysay cisbitaal ku yaala deegaanka. Booliiska saldhigga Lefi ee Mandera ayaa waxa ay sheegeen in ambalaastu iyo waliba shaqaalaha caafimaadku ay ku sii jeedeen cisbitaalka Ceelwaaq si markaasi loo gudbiyo bukaankan, iyada oo maleeshiyada looga shakisan yahay Al-Shabaab ay qafaasheen baabuurkaasi iyo waliba shaqaalaha la socday oo dhinaca Soomaaliya ay u soo wateen. gudaana daawadayaal intaas ayaa ku soo meeraya barnaamijyadeedka kala socoteen warbaahinta Soomaaliya Production tan iyo kulantii dambe nabad iyo warsan.